laba gool iyo gool Manchester United ayaa maartay galabta inay ku badi doontaa in isleeyahay Manchester ku natiijada wuxuu ku dhamaan doontaa kulankan oo loo badinaya inay ku dhamaato laba gool iyo gool Arsenal ayaa ku adkaa doonto laba gool Liverpool iyo Chelsea Stamford Bridge ku dhici doona 2-2 Real Madrid kulankan 3 gool iyo gool inay ku badi doonto natiijada ayaan siinaya Inter Milan laba gool iyo gool ay kaga imaan doontaa kooxdaas bismillaahir rahmaanir rahiim kula waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka dalsan muqdisho ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo ku saabsan kulamada toddobaadkan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League laga ciyaari doono sidoo kale kulamada kale ee horyaalada laga ciyaari doono ayaynu falanqeyn ku sameyn doonaa waxaa falanqeynta ila qayb galaya Ibrahim Farkeeto oo isagu inta badan ciyaaraha ila falanqeeya waxaan falanqeyntan ku eegi doonaa guud ahaan kulamada toddobaadkan ee laga ciyaari doono horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League toddobaadkii toddobaad ayaan Premier League la sii qaadi doonaa hadaba waxaan dul istaagi doonaa kulamada waaweyn ee caawa ilaa clubta laga ciyaari doono horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League sidoo kale waxaan eegi doonaa Real Madrid oo caawa ciyaareysa Inter Milan maxaa laga filan karaa waxaan ku horeynaa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ku hormareyna Ibrahim sala socono Premier League toddobaadkii toddobaad ayaa la anbaqaadaya kulamo waaweyn ayaa caawa ilaa clubta jira kulanka ugu horeeya shanta galabnimo Manchester United iyo sidoo kale West Ham ay raadiyeen Manchester United iyo Sunderland ayaa isku arkaya Arsenal iyo West Ham sidoo kale waa ciyaarayaan marka kulanka ugu dambeeyana caawa Premier League kulanka ugu adag Liverpool iyo Chelsea oo dhaxmaraya waxaan ku hormareynaa bal kulanka Manchester iyo sidoo kale Sunderland dhaxmaraya san la socono cadaadis weyn saaran tababaraha Manchester Ruben Amorim kulankan iyo waxa uu kaga dhigay Ruben Amorim Manchester wax laga filan karo salaano waa santahay Manchester United Old Trafford waxa ay galabta kulamadadan ay ku qaabili doontaa kooxda kubadda cagta ee Sunderland Manchester United iyo kooxdan macalinkeeda Ruben Amorim waxa saaran cadaadis aad u weyn tan iyo kooxdiisa horyaalka Premier League waxa uu wajahayaa dhaleecin iyo maaragtay taariikh xumatii ugu xumeed Manchester United qabsato tan iyo markii uu ku soo biiro Manchester United wajika wax badan ay la kulmaysaa waxa waaye kulan kasii dambeeyo waxa waaye fadeexadiisa macalinka Ruben Amorim ayaa banaanka imaanayso galabta waxa uu baxaya Sunderland sidoo kale isbuucii hore waxaan ogeynay in kooxda Brentford ee fadeexa 3 gool ay kala soo kulmeen waliba ciyaar lagu soo bahdilay garoonka kooxda Brentford Sunderland ay u bixi doonaa macalinka kooxda kubadda cagta Manchester oo soo dhaweey doona maanta macalinka kooxda kubadda cagta Manchester cadaadis fara badan saaran haday noqon leed maamulka Manchester noqon ciyaartoyda kubadda cagta oo maamulo si la mid ah taageerayaasha kubadda cagta waxa leeyahay Ibro kulankan haduu adkaan waayo Amorim waxay u badan tahay in aan la sugin kulanka weyn ee kadib fasaxa caalamiga soo laabto Liverpool la ciyaarayso Manchester bal Amorim shaqadiisa maanta maxay tahay inuu badbaasado waxyaabaha looga baahan yahay Salamaano hadii Manchester United macalinkeeda Ruben Amorim oo ku xirnaan doona natiijadiisa kulanka galabta in maaragtay oo si joogi doona ama in kooxda laga buri doono ma u maleynayo maaragtay in kulankan ku xirnaan doono hadii ay maamulka kooxda ay rabaan macalinkan in shaqada ay kiciyaan waa horeetod ama mar horeetod ayaa shaqada ay ka bur lahayn kadib gool darooyinkii isla xigay tan iyo xil ciyaareedkii hore bartimihiisii marka kooxda cadaadis fara badan ayaa saaran ciyaartoyda culeysyo fara badan ay qaadi kareen ay wajahayaan dhamaantooda asigii naftarkiisa tamartii ayaa ka dhamaatay marka la fiirsho si oo maaragtay saxaafadda ula hadlayo meediyaha marka Sunderland oo baxaan galabta garoonkooda Old Trafford ay joogaan galabta inuu yani isbadbaasho oo natiijo fiican la imaado balse Ruben Amorim iyo Manchester United waxa waaye uu maleynaa kulankan bis lagu go'aami doono mustaqbalkiisa ma qabtaa marka kulanka Liverpool uu gaari karo tababarahan salaban kulanka marka loo fiirsho macalinkan in la buriyo waliba waqtigan uu ku soo aado maamulka way arkayeen tan iyo xil ciyaareedka hore Manchester United-na kulanka natiijada galabta oo kala imaado ma ku xirnaa doono mustaqbalkiisa markii loo fiiriyo natiijooyinka kulmi doono marka inuu si joogi doono ayaa filaya waaya Ibrahim Hasan sidoo kale maanta kulamada jira Premier League waxaan qayb ka Arsenal waxay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa West Ham Arsenal raja hortaala oo markii ugu horeysay ciyaaraadkan horyaalka ee hoggaan ku qabatay si gumeel gaar ah haatan Liverpool laba dhibcood ay ka dambeeysaa Liverpool kulankeeda waan eegi doonaa toddoba fiidnimo soo gali doonaa iyo qadar 3 daqiiqo Arsenal bal kulanka West Ham ma adkaan kartaa Arteta formka kooxdiisa ku jirto ma sii wadan karaa Salamaano Arsenal waxay soo dhaweey doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United oo wato macalinkeeda Nuno Espirito Santos macalinka hore kooxda kubadda cagta Nottingham Forest iyo Wolverhampton Wanderers Arsenal galabta hadii ay guul ay galabta gaarto waxay ka dhigan doontaa in si ku meel gaar ay hoggaanka u sii qabatay ilaa kulanka oo Stamford Bridge ka dhici doona Arsenal iyo Liverpool dhaxmari doono Arsenal fursad dahabi ah ayaa hortaalo taasoo ah kadib ku fitaankii isbuucii hore Crystal Palace Liverpool marka Arsenal
Arsenal inkastoo West Ham ay tahay mid kamid ah kooxaha ugu dhibka badan kooxaha horyaalka Premier League haddana sidaas oo ay tahay ma loo maleynaa inay hor istaagi doonto kooxda kubadda cagta Arsenal oo ognahay xil ciyaareedkan ama xil ciyaareedii ugu dambeeyay sida dardarta ay ku soo marka waxaa leedahay Arsenal ugu yaraan saacado horyaalka hoggaankiisa way qaban kartaa aad weyn marka waxa waaye intan iyo kulanka Stamford Bridge ku dhici doono Arsenal waxa waaye xilli horeba hoggaanka Premier League way si qaban doontaa waliba farqi goolasha ay ku sii qaban doontaa aad iyo aad inkastoo xitaa hal dhibic ay ku qabanayso haddii aad kaato haata laba dhibcood u dhaxaysa labada kooxood aad weyn waayahay markii kulankaas aan kasoo tagno Ibrahimow caawa sidoo kale waxaa jira kulanka weyn oo aan uu yahay kan tiiradan saarayno falaqeynteena inta badan ku eegayno Chelsea iyo Liverpool labada kooxood caawa Stamford Bridge isku arki doonaan 7 fiidnimo iyo qadar 30 daqiiqo kulanka soo galaya bal kulankan waxa laga filan karo Liverpool way ugu dambeeyay aaday u dhibaatoonaysa si gaar ah labada kulan ugu dambeeyay dhammaan tartamada guuldarooyinka ugu horeeyay sanadkan soo gaaray Chelsea iyo Cameroon bal kulankan iyo wax laga filan karo isagan caawa fiidkii waxaa jira kulan aad u weyn ah Stamford Bridge ka dhici doona kooxda kubadda cagta Chelsea waxa ay soo dhaweyn doontaa dhigeeda kooxda aadka u xifaltamaan sanadihii la soo dhaafayay kooxda kubadda cagta Liverpool ayadoo maaragtay labadii kulan ee la soo dhaafay Crystal Palace iyo Galatasaray Champions League iyo Premier League lagu soo kala dilay waxa ay booqan doontaa Stamford Bridge oo ah mid kamid ah garoomada xifaltanka ugu baahan oo dhex yaalo Premier League marka loo eego Liverpool waxa ay wajahaysaa cadaadis badan kulamadii horyaalka bilowgiisii la soo dhaafayna waxa ka muuqday habacsanaan iyo isku dhacyac badan ay ka muuqday walow natiijooyin fiican ay gaarayeen haddana qaab ciyaaroodkooda waxa waa calaamad su'aal badan ayaa su'aal weyn ayaa dul saarnaa marka natiijooyinka ay u gaarayeen sanadkan waayahay bal kulanka markaan eegno bal dhinaca kale Chelsea kulmadii ugu dambeeyay dhibaatooyin dhanka guuldarada ah markii laga soo tago waxay la kulmaysay ganaaxyo roosooyin ah ilaa haatan waxaa leeyahay kooxda ugu roosaha badan waa xilciyaareedkan 4 roos ay maraysaa kulankan Chelsea in Samareska ciyaartooydiisu xakameyn noocan looga baahan yahay markay ciyaarayaan Liverpool hortagayaan Salamaano tan iyo dhamaadka bartamaha xilli ciyaareedkan Chelsea waxa laga dareemay isku dhaxyaac fara badan waliba xilli ciyaareedkii hore ay qaateen xilli ciyaareed aan laga filin aad u qurux badnay xidigoodii Balmer iyo islamida qaar kamid ciyaartooyda xilli ciyaareedkii hore aad wax kaleeyay haatan Balmer waxa soo wajahaya dhaawacyo ku soo laabanay mar labaad ayuu dhaawac inta ka soo laabtay oo wadana ku laabtay dhaawac ku sugaya kulanka caawa islamida Chelsea ciyaartooydooda waxa waaye inuu lumay anshaxi ama maaragtay yani akhlaaqiyan macnaha disciplineki inuu lumay ayaa dareemaysa marka loo fiirsho in shilix kulan ay ku qaateen ilaa iyo 4 roos taas oo laga dareemi karo yani nidaam xumada kooxda in dhanka idlabshininka ay aad uga liitaan la dareemi kara marka kulanka caawa calaamad ama roos ay qaataan waxay ku noqon doontaa caqabad weyn kulanka waa kulan adag Chelsea markii ay wajahayso kooxaha waaweyn horyaalka Premier League sida Liverpool waxa waa mid kamid ah kooxaha maaragtay si kastoo u liitaan haddana isbedel weyn iyo hanaan fiican oo soo shartaga ay maaragtay kamid tahay marka isbedel weyn ayaa laga filayaa Enzo Maresca iyo ciyaartooydiisa walow ciyaartooy fara badan ee daafac u badan ee dhaawac kaga maqan yihiin Arne Slot dhankiisa bal caawa maxaa la gudbo inuu sameeyo iyadoo aan ognahay kulankii ugu dambeeyay Champions League-na uu gaad ku soo bilaa Mohamed Salah si kooxda wadada guul ugu soo laabato Arne Slot maxaa looga baahan dhankiisa Arnold Slot squadkana waa ku yahay ciyaartooyda oo haysta aad u yareen afkaas hore iyo weerarka markii loo fiiriyo haddana saas ay tahay waxa uu isku dayay qaar kamid ah ciyaartooydiisa inuu dhigaalsado oo maaragtay kalmasiino oo siista haddana waxa waa waqtigii uma saamaxay oo horyaalku iyo tartamadii gabi ahaan qaaradda Yurub waa bilow ay marayaan oo waxa waaye wajigiisa kuwada ayaa la marayaa ciyaartooyda oo haysta oo yareen xidigii cusba ee kooxda soo wada bilowgii ilaa 40 kulan ugu horeysay horyaalka liga Hoga Ekateke aad ayuu u dhaawacmay waxa soo laabtay صحيح عصب كوحدة كبد عكت ولو لبدي كلنا يقول رئيس جامبيونز ليج يقول كي كريستال بالاس يا جامبيونز ليج جرد سراي يقول درق الوسود وعاوسة جامبيون دون كوحدة كبد عكت أفكار ليفربول محمد صلاح كان بيعرض دونه مركا أرنولد سلوت على بدنا يا سارن مركا الله فيريو مارك قاب عيارات كلي تولوا نتيجة في عن كوحدة سوق جاري صدنا نتيجة وهلا يبلغ ويا إبراهيم على بدنا يا سارن سلام ويا وما صدق بل دينا حكله عاوة إساق أيا لو بدنا يا سي وبدنا تهاون شحذ وكوسو بلادو ما دام إجت وداوعي هاي إساق تاريخ حمو يكون استعليه كروك ستانفورد بريدج laba sano isku xigta 23 iyo 24 uu booqday isagoo Newcastle u ciyaaraya shabaqa Chelsea waa soo booqanay laakiin kooxdiisu guuldarey soo qaadanaysay horay ciyaartooy lagu magacaabo nin la yiraahdo isagu oo u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Leeds oo Ruud Wallace la yiraahdo ayaa taariikhdan hore u sameeyay isagoo Norwich ka hortagay 3 sano isku xigta
gool uu dhalinayo laakiin kooxdiisa waa laga soo adkaanaya waxaa leeyahay isaaq hadduu caawa mar kale uu dhaliyo gool Chelsea adkaado Liverpool laga adkaado rikoorkaas xun ayuu mar kale barbareen doonaa mal isaaq caawa formkiisa waxaa ku tilmaami karno Chelsea shabaqeeda ma gaari karaa guul muxuu hogaami karaa Liverpool oo Stamford Bridge muxuu soo adkaan karaa Chelsea Alexander Isak kooxda kubadda cagta Liverpool ayuu ku soo biiray dhawaantan bilowga xilli ciyaareedkan kulankiisa saddexaad ayuu caawa ciyaari doonaa waxa uu kortoogi doonaa kulan big games Chelsea oo Stamford Bridge ku jiri doonaa Stamford Bridge kulamo badan oo hore u soo booqday guuldarrooyin badan ayuu kala kulmay waliba labada xilli ciyaareed ugu dambeysay asigoo waliba goolal dhaliyay in maaragtay kooxiisa laga adkaanay guuldarro ay la kulmaysay caawa kulanka caawa inkastoo aan la dhihi karin Maxamed Ayraade Alexander Isak gool uu dhali karaa ama maaragtay kooxiisa badi kartaa aad u adag yahay haddana ma u malaynayo maaragtay in rekoorkaas uu sii socon doono caawa inuu meeshaas kusoo jebin doono ayaan u malay doonaa haddiiba uu natiijo ama uu maaragtay kooxiisa kor oo gool uu siiyo waayahay haddii aan intaas kaga gudubno bal Chelsea caawa waxaa ka maqnaanaya ama usoo laabanaya dhehe ninkii nooga caabayay gulaayaheedii Sanchez oo kulanka ugu dambeeyay Brighton Rose ku maqnaan kulanka Manchester uu qaatay sidoo kale Palmer waa maqnaanaa Chelsea markii kusoo laabto kale Sanchez oo kale maxay kaga dhigan tahay isleedahay ba faa'iido mise faa'iido daro Salvano ninkan Sanchez leeyahay Robert Sanchez oo ah goalkeeper-ka kooxda kubadda cagta Chelsea ahna goalkeeper-ka koowaad ama portier-ka koowaad ee kooxda Chelsea inkastoo uu yahay goalkeeper maaragtay qaladaadkiisa aad u fara badan yihiin haddana sidaas oo ay tahay waa mid kamid ah goolhayaasha ugu fiican markii loo fiiriyo kulamada qaar oo sida kooxda uu badbaadiyay marka soo laabashadiisa waxay u noqon doontaa kooxda maaragtay boos ka maqnay inuu dib ugu soo laabto waaxid mid kamid ah ciyaartooyda ugu weyn kooxda kamid ah mana haysto goalkeeper asiga u dhigmo marka Chelsea cadaadiska saaran daafaceedii inta ugu badnaa dhaawac ay kaga maqan yihiin marka cadaadiska gadaal saaran haddii uu shakhsiyan qaladaadkii lagu bartay haddii uusan dib u gelin waxay noqon doontaa mid kamid ah maaragtay xoogay cadaadiska waaya Ibro ma santahay saadaasha kulamadan oo imaan doonaa waxaan isaguna eegaynaa bal Spain Real ciyaaraysa saan la soconana kulanka ugu dambeeyay guuldaro xanuun badan dhabarka loo saariyay Atletico shay laba kaga adkaatay caawa Real Santiago Bernabeu ku soo dhaweynayaan marka loo eego Champions League soo adkaadeen horyaalka Spain guulaha ku soo laaban karaan kooxda oo barasha Alonso Real Madrid Xavi Alonso waxa uu dhistay koox aad u adag oo maaragtay argagaxla ay u dhistay markii loo fiiriyo walow guul darre aad iyo aad u xanuun badan oo kala kulmay kooxda garoonka Waldemar Beltano Atletico de Madrid oo booqday isbuucii hore oo guul darre xanuun badan kala soo kulmay balse Champions League ay ku iloobeen ku badsheen golal aad u fara badan ninkii Kylian Mbappe kooxdiisa hadii laga badshay iyo hadii ay badinaysaba waa ninka maaragtay laga yaabaa shabaqa diris la ciyaaradkan marka Arda Güler iyo waxa way isha Kylian Mbappe isfahankoodii halkaas ay ku soo doonaan walow Xavi inkastoo Vinicius Junior isaga maalmahan aad loo arkeenin oo Mbappe uu waxa waaye u shidaya garoonka seven oo aad weyn waxa waa ninkii Mbappe ayaa waxa noqday isha kooxda kubadda cagta Real Madrid markii loo fiiriyo magac iyo natiijo iyo maaragtay hadal haynba asiga ayaa la wareegay xal ciyaareedkan inuu shabaqa diris la noqdo Xavi Alonso kulamada waaweyn waa uu dhib qabaa markii loo fiiriyo xal ciyaareedkan kulankii koowaad oo big games ah uu ku kufay waliba 5 gool ayaa lagu haaqay markii uu joogo Bayer Leverkusen waxa lagu ogaay inuu ahaa mid kamid ah kulamada big games ka marka bal Xavi Alonso marka wadada guulaha horyaalka Spain marka laga hadlayo caawa muxuu soo laaban karaan oo Real ka adkaan karaa وكسر الله بكرة سليمان ريد ومتك مالتي يعني مثل لافر شهاب كو شافي ألونسو ودسو والله كرا وكسر الله بكرة عاود هنا عاد ريال بحربان وأد وأدق ولو برنامج استاديو وكل دون هذا ما الرفر فالريال آدي وأدق شافي ألونسو إنه مارتي كنا كان إسماعيل دون وكلمات دون وليو فالريال كنا جودن بإسبان أتلتيكو بالبابي كاتو ولا حالي بركات كامبيون كنا بربرين فوتوس لسوكش لبي فوتوس لسوكش waayahay dhinaca Talyaaniga haatan eegno Ibrahim hal Inter Milan diirada saarayna inkastoo kulmo badan jiraan naadiga Inter Milan haatan 9 dhibcood leedahay 5 kulan ay ciyaartay horyaalka Talyaaniga taa waxay ka dhigan tahay in 3 ay adkaatay 2 laga soo adkaaday horyaalka wadajir Napoli AC Milan iyo Roma ayaa min 12 dhibcood ku hogaaminaya Inter caawa Janus waxay u haysataa in hogaanka ay kula midowdo kooxahaasi kulanka ay la ciyaarayso naadiga Cremonese 7 fiidnimo soo gala Inter Milan iyo kulanka waxa laga filan karaa
سليمانو انتر ميلان markii loo fiirsho xilciyaareedii ugu dambeeyay ama sanadii ugu dambeeyay waa mid kamid ah kooxaha ugu awoodda badan leh dhankaas iyo horyaalka kubadda cagta ee Serie A ee Talyaaniga caawa kooxda ee kubadda cagta ee Cremonese ay u baxayaan mid kamid ah Cremonese naftirkeeda ma aha koox shar yar 39 dhibcood ay leedahay inta ku dhibcahay haddana saas ay tahay Inter Milan guul caawa ay gaartay waxay ka dhignaa doontaa in Victor Seri horyaalka hoggaanka ay qod ka soo tiigsan doonto walow kulanka bari dhaxmar doona AC Milan iyo Juventus isha lagu wada eegi doono marka Inter Milan kooxdan inay iska dili doonto oo maaragtay hoggaanka Victor Seri ay qod ka qabsan doonto ayaa loo badinayaa loo fiiriyo ciyaartoyda iyo maaragtay iyo foomka ay ku jiraan ugu dambeeyay waay Ibrahim aad u maasan tahay ugu dambeyn soo gaarna bal si guud bal saadaasha kulamadan saadaashaada kulamadan laga filan karo horyaalka Ingiriiska kala tiyaan ku hormarno Manchester United iyo Sunderland kulanka shanta kale soo galaya saadaashaada iyo guudaan waxa uu ku dhamaan karo natiijahan سليمانو أنا أقول مرة إنه كواحد كوبا عكتا مانشستر يونايتد أولد ترافورد يكون عيار سعادة بدنا صارا مانشستر العيارات كان مصر مدعي إن الله بكرنا أسكوعك تاني العيارات كوريتود مدعي إن الله بكرنا أسكوعك توريال كبريمير ليج أما ترتمدوا دن إن أي بديسو هذا نص سيتاي كل كيلو سودا في برانتفورد أيا كات تسح جول يقول وقت كاتي قلبت أولد ترافورد جوكتا روبن أمنو وحلاقيا يرتدي سنة عدد كيس كدول قادان كوعدا إن إسكابتشان مركا إن لبقول يقول مانشستر يونايتد أيا قلبت إنه كوبا دونتاي أنا سليها مانشستر قد كاتون واي هاي وست هام أرسنال وكلن كله وين شنطة كلنا يسمى بلاوانا يا إما رد سوق بلاوانا فالكلن كان يسوون واحد كلن كانوا نتيجهان وحكر ما كان أرسنال ولا العليلة هاي مركل الله في شو الحلقات كوريا هناك وعيار الصو ولو وحنا كوبا عكت يتو لقات كاكر هذانا إمارات تسي جوكتا وست هام وبحسا عيارتوي دي أرسنال بجبيهان مارك أنتوا أمي بسند وصل لاتين حسابتنا قدر سوست هام لو كله قدر إمارات تسي أرسنال وكذا عطيات aad weyn West Ham waa mid kamid ah kooxaha markii Big Six waliba Arsenal iyo kooxaha maaragtay Big Six markii wajahayaan mid kamid ah kooxaha ugu adag haddana saas ay tahay waxaa la filayaa galabta Arsenal ay formkeeda iyo horyaalka ay sii wada doonto hoggaanka si ku meel gaar ay ku sii qaban doonto caawa natiijahan wuxuu ku dhamaan natiijahan wuxuu ku dhamaan doontaa kulankan oo loo badinayaa inay ku dhamaato 2 gool iyo gool Arsenal ayaa ku adkaa doonto waayahay kulanka ugu dambeeya waa Liverpool iyo Chelsea Stamford Bridge toddoba fiidnimo iyo bar ayuu soo galayaa kulankan iyo natiijadaada iyo waxa uu ku dhamaan karo adigu Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Chelsea oo gurigeeda joogto Stamford Bridge ayuu ka dhici doona kulankan oo kulan aad u xiiso badan Liverpool waxa ka maqan goalkeeperkeeda Alisson Becker ayaa dhaawac ku siibay walow la filayo kulanka Manchester United isbuuca xilli inuu soo laabato 20 bisha soo laaban doona kulankan Chelsea daafaci fara badan ayaa ka maqan sida la mid ciyaartooydeedii ee Balmer oo ah mid kamid ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda marka waxa la isleeyahay dadka kubadda cagta oo dhan u saadaalinaya in kulankan barbardhac ku soo dhamaan doono marka ani ahaan kulankan barbardhac 2 gool iyo 2 gool ayaan isleeyahay waa sida saadaasha ay u badan tahay waa ku raacsan tahay saadaasha caalamka waxay ku saadaalinayaan ama khabiirada farqiyaasha kubadda cagta waxaa la isku raacayaa in kulankan barbardhac ku soo dhamaado waayahay Spain 2 gool iyo 2 gool Liverpool iyo Chelsea Stamford Bridge ku dhici doona 2-2 ku soo waayahay Spain Real markaa natiijahan Real iyo kulankaas muxuu ku dhamaan karaa Real maadaama wadada guul ku soo laabanaysa natiijahan meeqay kaga adkaan kartaa isleedahay Mbappe shaqo ma gaari karaa كليان إمبابي ريال مدريد بديسي أما ريال مدريد أقول بس مكان لما قالوا إمبابي وقف كواد أما قف كلا واحد شبك ريال مدريد مركز وعلى سويدينا إمبابي من اليوم ريال أعطيه ستان ريال ويلسي يدلي إمبابي نقد تاع أصيل في العيال في الريال وكوح أدو أدق واي لو ما تبدي كل عيار مارتي في الريال كل ريال مدريد هذانا سيد صويت هاي إمبابي يشاف على صفون في عني كجرا ولو لسود كل كي أديتك مدريد جرون كذا ولد مرق تانو يكبوق صويت هاي ريال مدريد كل كان سدح جول يقول إنه كوبا دونتو نتيجة هاي سينايا وايا إنتر ميلان كنا كوجود بيا طليانية فلقينته هنا مانتا سيرة هذا أدو أرجع هاي كوحة يرد كوحة وين وحواي لما صار وهذا السكوات كيا لما صار على كرو سيدا صوت هاي إنتر ميلان لما جول يقول أي كجي ما دونتا كولاس ونتيجة درقية نتيجة درقية كجي ما دونتا سيرة أنا بدنا نتيجة درقية على سيرات كذا كل مدة وين كل مدة يربع وايا هاي إبرة هذا ما سنت هاي فلقينته أصلي وحياة كسر كرنا عرق دونا كل مدة أيام وحيين كل مدة طلبات كانوا هلال كوت إنجليز كبريمير ليج كوا لقى عيار يقول هو وين أرسنال يوست هام واشنطن كلب نمو مانشستر يونايتد سنترلاند واشنطن كلب نمو أولد ترافورد إمارات سهي كل مدة كذا عيان حالك جلسية يسوع كل نادي قال لهم قاعد ليفربول وكلهم كذا يسوع كل يوم تدور في نمو يقدر صوت دقيقة ريال العاوة يدنا كلهم كذا 4 ساعة بينما يسوع كل يوم أو سنتياغو برنابيو يكون عيار سنتر ميلان العاوة هل ساعة أيو كلهم يسوع كل يوم تبع نتيجة كي كسر لا برمجيدني فلقينتين حاجة أي صاحب يال إذا قلوا سوق من تونا كدان إنت أيو كسر قبل هنا فلقينتين كوبنت أو إنكو
ku eegeynay kulamada toddobaadkan laga ciyaarayo horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub si gaar ah horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League oo aan falanqayntiisa xoog u saarnay Ibrahim Farkeeto ayaa falanqaynta qayb gala ahaa waan celinaya aniga Cabdalla la socodsiinayay barnaamijkan ama falanqayntan xigta saaxiib yaalinta kulmi doono sida ay nabadgelyo